بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقاسم واحدك واحدة هيرتيادية يشهد بحنتها هايد الدورس الطيادة إن شاء الله وحن مانتا كهد للدونا قضب يرو مهمة وكت صابصا سمد الطيادة إن هايد الدورس الطيادة جمهورية السومال لان لا أساسي دكريت مدحوينه لابد يكون يطبنكي لابد يكون يأفر يطبنكينا لسيد داي حير كيدي أو برلمان كأسيحيي لقونا السيحيي حير نمبر 6 labada kun iyo 14 ujeedooyinka waaweyn ee hay'adda dhowrista tayadu qabataa waxa weeye inay dalka ka ilaaliso maciishadaha iyo agabka tayadoodu hooseyso ee dalka soo galaya iyo kuwa kale ee dalka lagu dhex farsameeyaba iyadoo taa ka duulaysa hay'adda dhowrista tayadu waxay sanadkan bilowgiisii bilowday barnaamij kor loogu qaadayo tayada wax soo saarka dalka ee warshadaha dalku soo saaraan barnaamijkaas oo ah barnaamijka sumada tayada June 2023 kana la guddoonsiiyay labadii warshadood ee ugu horeeyay kadib markii ay dadaal badan sameeyeen marka barnaamijkaas sumadu waa barnaamij aad u muhiim ah waxaana hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland u siinaya xeerka hay'adda dhowrista tayada qodobkiisa 26aad oo sheegaya hay'addu waxay bixin kartaa sumad ama sumado kadib marka agabyadu ay waafaqaan heerkii tayada ee loo baahnaa marka hadaba intaynaan su'aasha ka bixin waxa muhiim ah inaan isla garano waa maxay sumada tayadu sideedaba waa calaamad astaan ama sumad la siiyo shaygaas oo waafaqa shuruudihii looga baahnaa ee badqabka caafimaad ee dadka marka shayga marka ay ku subowdo ayaa sumada hay'addu ay siisaa hay'adda dhowrista ay siisaa warshadii markuu shaygaasi baaskareeyo nidaamkii badqabka caafimaad ee looga baahnaa hadii sumadii tayada ee hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland bixinaysay aynu soo sharaxnay ama aynu soo sheegnay waxay tahay waxa muhiim ah iyadana inaynu eegno bal sidee lagu helaa sidee warshadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya ay u soo dalban karaan sideedaba nidaamka lagu dalbanayo sumada tayadu bara 5 heer shanta heer marana waxa weeye sida soo socota xaaladda koobaad waa soo dalbashada codsiyada marka la soo dalbanayo codsiga warshadu waxay iman kartaa xafiiska hay'adda ee xarunta dhexe ama website-ka ayay kala degi kartaa dabay waxay ku soo lifaaqi doontaa codsiga dukumentiyada muhiimka ee sida laysanka ganacsi iyo diiwaan inay ka diiwaan gashan tahay wasaaradda warshadaha iyo wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga marka marxaladda labaad ayaa loo gudbaya marxaladda labaad ee loo gudbayana waxa weeye waa marxaladda la yiraahdo marxaladda qiimeynta sideedaba wuxuu marxaladda qiimeynta laba qodob ayaa hoos imanaya mar waxa la qiimeynaya warshadii si guudna waa loo qiimeynaya oo system baa la odhanaya certification marxaladda qiimeynta labaadna waxay noqon doontaa in la qiimeeyo shayga laftigiisii marka shaygii muunad ama samples ayaa laga qaadaa sampleska laga qaadaana wuxuu keenayaa in shaybaarkii qaranka loo diro oo dabadeed natiijo ka soo baxdo marxaladda saddexaad waxa weeye waa marxaladda in go'aan laga gaadho marka waxa soo baxaysa marka riboodadii iyo natiijkii ay soo baxaan in guddi loo fadhiisiyo guddidaasi ay go'aan ka gaadho in warshadii qaadato ay heli karto sumadii tayada iyo shahaadadii la halmaashay dabada hadii la isku waafaqo warshadii waxa la siinaya sumadii tayada oo ay shaygi ku dhajinayso waxaana haysanaysaa muddo 2 sano ah muddada 2 sano ah ay haysato marxaladda afraad baa loo gudbaya oo ah muddada 2 sano waa lagu dul joogteynaya ama lagu ilaalinaya surveillance kor joogteyn iyo ku dul ilaalis ayaa meesha ka dhacaya si aan warshadu heerkii gaadhay hoos uga soo dhicin marka sida sharciga ah sanadkiiba 2 jeer ayaa team baarayaal loo diraya oo ay soo jeegarayn doonaan warshada marxaladda shanaad in warshadii 2 sano dabadeed ay dalbato shahaadadii oo dib loogu cusboonaysiiyo markaas oo ay dib u qaataan oo ay maraatibtii markii hore ay mareen ay dib u maraan hadaba maxaa faa'iido ugu jirta warshadaha dalka nidaamkan ah sumada tayada qodobada soo socda ayay warshadu ka faa'iideysaa sumada tayadu waxay kalsooni siinaysaa bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kalsoonidaas oo ah in shaygani uu soo maray maraatibtii looga baahnaa tayeed
oo ay macnaahan hay'addu dhowrista tayadu ay soo hubisa ayay sumadu muujinaysaa qodobka labaad waxa weeye waxay ilaalinaysaa in ashyaa tayadoodu hooseyso ama badeecada tayadoodu hooseeyo ay soo galaan suuqa xorta ah ee Soomaaliland ama dibadda ka yimaadeen ama gudaha ka yimaadeen waa qodobka saddexaad waxay dhiiri gelinaysaa ganacsatada ee warshadaha dalka oo sidoo dhiiri gelinaysaa macnahaan waxay u dhiiri gelinaysaa in ay nidaam fiican ay gaadheen oo meel fiican ay tayadii ka gaadheen